وحبان نيادا يونغو قبسان علي برو وان كدريرنا انك سيغدان ku darnay ma maqli hasa meeshu nooga tagnay oo علي برو waxba qaasin yu fargelin gabdhaha qaasin baan la hadlahayaa isku uurko aan noqono isku gooli aan noqono أنا رقص الساعة حقينا ويستاهل دولتنا ويستاهل دبلومانينا ويستاهل ويلاشينا ويستاهل دولتنا ويستاهل دولتنا ويستاهل أوين الرقص نستاهل أوين الرقص صبحة تلياتنا ويستاهل مدنا مدينة ويستاهل مدنا مدينة ويستاهل هيا واتوجه دي جي فريسة ولا لي فريسة توجه haddana geediga asaga oo fadhiga ugu horeysay iskuulka Alfarax uu ka dhacay maxaa xigay in geedi socod uu ka dhacay Gaaris ilaa Garasooyin oo inta deegaan oo qaasin uu joogo geedi socodkaas maxaa laga soo kulmay natiijo aad u wanaagsan lagu goowaabinayo talweenka qaasin inay jahiistaan siyaasadda hadda soo socotana ma aragtay qayb weyn ay ka qaataan ayaga u danne talweynaha Gaarisna u dana kaas ayada maxaa xigay in ma aragtay abaabul iyo dad isku dhafan ay ka shaqeeyaan umuro ilaa hadda meeshay joogaan fadhiga ugu hore oo haweenka reer Qaasim bes aan u dhigna kana koow mana ku ekaani doono horbu u socon doona marka waan u mahadcelinayaa cid kasto oo ka soo qayb gashay cid kasto oo meesha saad ku joogtiin oo ku soo buuxdanteen inta kalena ay naga fiirsanayso ayna aad ugu hiilanaayeen tanna waa bilcanta Qaasim oo magaalada Gaarisa ku nool bes ah marka mahad weyn baa idin celinayna waad ogtihiin halkan waxa loo fadhiyo ma ogtiin mise ma ogidin inta qof oo wixii halkan loo fadhiyo gacanta kore u qaado aad u maasantiin marka kudi waa la wada warqaba oo warka ma yaro maxaan soo dhaweyn oraxdana way kulushahay maxaan soo dhaweynaynaa odayaalkeena annagoo ka bilaabayno duqbare inuu ma aragtay kalimooyin noo jeediyo wixii kalena waa inoo dambayni doonaan fadhiya tafadal mudibare waxaan idin sheegi راقاسنو رجال نساء رجال واحد ماشن هذا بريها ما انت اللي جوه قول كوضا انا اهانتي رأيي جاي قحون بالعان تابو قول كان لقب سنين قول لقب سنين ولا لا واسد الرمت ناك طريق أرد أو لا ميدا أرد أو هنقوري دوني أو نن مدح وأرد لما أركع واحد طريقة ددي صلاة القرية كالله موريان هان رقوي آفواي آفدا دنا الله نغا مريو ولا ليالا waxaan idin sheegay arintan aan maanta u fadhino ilaahay baa shaahid iga afarna anagoo eban sanad iyo qadar baan arinta qorsheed ku jiray maalinka dambe waan tashanay afartaanadii baa laba Nairobi u kacdo aan Nairobi u dirin hebel ninka la dhaho aada bal afka soo qaada bacdigeed egay imaadeen ay warameen ninkii baa imaaday khabar buu noo soo diray afartaanadii hal nin baan u yeernay hal nin qaasinka kale idin shub baan ka dhahnay deeqow shuri baan u yeernay maalinkaas koow deeqow ninkii waan u tagnay waan wada hadalnay ballan baan kala qaadanay waxaa way Soomaali waxay jireen laba waraaba kalama quraxsano annaga qasadkaan u jeedno ogaadeen way ogaadeenna laba nin baa isgarab taagan laakiin sida ay noo sheegeen labadaa nin islama soconayeen unbaa la reebay midkii la soo reebo unbaa kaanage midkii la soo reebana naasir baa dhumid u ah waxaan idin sheegi haddaan walaal nahay haddaan wada dhalanay haddaan isku naxayno haddii ninka kale dhibka gaaray ama odaxda durta aan u naxayno ilma macallin maxamed hantidoodii way tagtay wax baa lagu dooni wixii lagu doonayay ninkii dabce inuu jajabiyo hantidoodina aan waxba laga soo qaadin ninkaa walaal muu noo yahay anigu naftayda waxaan ku dhaarsanahay kab alla qabrigii ninkaa naasir la dhaho qabrigii ninka u dambeeyo ninka kasii dambeeyaan ahane
waxaad yeelaysiin nin hadduu ku cadowsado waa la cadowsadaa hadduu ku soo dhowaystana waa laga dhowaadaa indhaha kala fura wiilashiina maanta inaad u guntatiin oo wixii ay gaaraan la dhaho gabdhaha qaasin cabdikariim bay ku gaareen baan ani idinka raba marka waxaad yeelaysiin wixii xil dhibay wuu tagay waxaan xil dhibaynin oo dhacaan doon baa soo hara dhacaankana ilaahay baa hayaa wiilashiina ha ka tegina wabilaahi towfiiq waa maalintii ugu horreysay shir qaasin cabdikariin aan imaado ciil badanna waan ku seexanay annagaa daba dhilif iska dhignay qaasin haddaan nahay oo tabartayna waxay noo qaban karto aan rag aan dantayna ahayn ku daalnay wax badan baan daba soconay reeyaxye meeshaan ka raacay reeyaxye cali bunow waxaan ku tagay ilaa garasweynow intaa qaasinka uu dhex socdo waxaan balyo uu siina ama wejiga uu siina ma jirto keetiga uu fadho ooga bakacay cabdikariina u hadli cabdikariina sabeen u xiri waa laga sheeganay sabeen cabdikariin baa xiri hor socda wax niyo uu ku hayo ma jirto qaasin wuxuu noqday buundadii lagu guuraaye oo yaxya ku guuraayo ku gudbaayay webigaa lagu maraa hadda maantadan qaasin cabdikariin asaa isdhigay shololkan asaadan iska yeelanin dabaqabasho haddii la hele oo qaasin uu isfiiriyo isgarwaaqsado way fiican tahay waana ku faraxsanaa annaga waa ku ansaya hadda tii naaga iyo kii ninbo inaan isgarwaaqsano mustaqbal aan yeelano qaasin oo intaasaa iga ware magaal dhicshafada lay dhahaa annaga malaanga bini aadan weliga ayna istaagin ilmihii qiimaha iyo sharafta aan ku soo korsanay yaan xaanshimahooda santuuq gashanay oon rag aji gacan u gelinay waxaa keene waxaas midnimo la-aanta qaasin maanta ay haysato yaa noo keentay haddii kolley egan liis fahme oo ragga uu haddana dhabarjabin ugu samayn doonin dhabarjabin ragga dhabarjabin buu xoog lagu sameeyaa mar walba meeshuu na joojiyu naga durqiyaa ilaa annaga doodad le inuu lama arko kuuraaga wiilasha annaga noogu maahan meesha ina joojiyaan baan ku marnaa hadday dhabarjabin ragga qaasin cabdikariin samaynaynin anag meeshaanadii umaan taaganaha yaxya meeshu cali bunow maanta naagaha qaasin cabdikariin intuu u yeere ballan uu la galay ballanti deenteeda ku jirta rag unbuu u yeere malaanga kuura anag maanta aan ridayna ma aboonmeed maan xiranayna malaangad cali bunow waxay noqotay markaad dhahdo ilmaan xanshimahooda u geysani in lagu dhaho aboonmeed ma haysataa ragga yaxya oo dhan way hadda markaan ilmaha xaanshimahooda u geysanayna baahi uguma tagna waxaan ka barino ma leh ilaa xaanshimihii ilmaha annaga aan u soo daalne oon akhriska ilmaha ugu soo daalne oon sanduuqyaan dhan maa kala baxdiina maanta ogaadeenku wax siin hayaa waxaana la dhihi aboonmeed maa haysatiin ana kuuraha annaga ma aboonmeed buu ku jir cidda intuu noogu imaada labelamiy ayaan u ridna qiima ugu ridnay aboonmentan uu yaxya nagu hayo waa inaan istaajinaa ragga qaasin cabdikariin oo mar dambe yaanan arkin haddaan warkan iigu maqalno addoomaydaaban raacaynaa kuura siinayna nakama xigtiin ha maanta haddaad wax samaan iyo wax isku da-diin waa nii garanaynaa ragga reer qaasinow anna kuurahana addoontaa leh ku tooga saacaddan way aheen meesha aadna joojiseen aan taagnaano yaxya waxaan u haynaa annaga sharci weyn unoo gudbay sharci gudub buu nagu sameeyey ilmihii akhristeen waa inoo wada joogaan waxaan u malanyaa 5 digriya cidda ii joogtaani cali bunowna intaasoo jeer baan u tagay kuurihiisana masalaani aan la tagay intaasaan daba socday fadhi gaaris egala dhan iska badaa maalin kasta waan tagay ka dambe waxay noqotay iradda in liiga soo celiyo mar kasta xafiiskiisa maalimihii uu soo galay anoo tagay yaa egi 4 saac la joogo ogaadeen oo dhan iradda tubanyo uuna dhexmaray hataa assalaamu calaykum waa salaanta muslimka muslim way waxa ku hortaagan inaad tiro assalaamu calaykum maa la rabaa oo salaanta dadka aa ku marto dantanaan u jeedaa ogaada aad tiro hataa assalaamu calaykum uuna dhihin uuna dhexmaray uuna mooday ka dambe iradiis haddana waxay nagu qabsaday ilaahay maa sheekar 3 beri yaa iradda taagneen oo qabiil walba gelay wax gala oo reer qaasina waan wayno oo loo yeero tadabada dabacawda qaasin maxaa ka hoos mari kaligiis maxaa gaar ka dhig inta kale way aragtee inta kale shaqad way qoratee
laba qabiilaan la galay ree maxaadna waan la galay aadan geerina waan la galay ku walba wasiirkiisaa wate wasiiraha fiir ciise yara wuxuu dhahay dhegtaan u saare duqa dhegtaan u saaray arrintaas iyo arrintaasaa u warramay haddaan fiirina shaqaalihii oo dhanba waa ayag hataa 300 madeenga hataa u qoran wasiirahay leeyihiin chief officer-yahay leeyihiin daragtayahay leeyihiin inta kala qoran maxaa qaasin u saacidda ugu badan maxay tahay maxaa daarasag maxaa ka hoos mari hal wasiire muxuu waa halka wasiire maalinta kuuraha la ridayna nin walba dhiigaa maa gadani nin kasta waxaa lagu dhahay maan caawaq faataxa u soo maray inkaarta caawaq ay ku qabsanin ilmaha yaa lagaa laynin anagu xaggaan runaa mudaynaa ilmahanya u sii cabsoonnay ilmihii waan jooga waa inoo joogaana guriga inoogu jiraan baraaqihii waa kuwan digriga caawalta 5 baan rada joogsaday 5 intaasoo wiiga aan ku socday wax ila hadlana waan waayay kolley waa la hadlay gabdhaha walaalahayga oo sharafta leh intay ka hadleen oo yar baan ku dari rabaa calaacalka hadda qaasin cabdikariin uu arka aniga waxaa la yidhahay Sahra Maxamed Sooyaan magac maskiinka beesha qaasin cabdikariin lafdhaga barkeeda nahay u dambeys meesha la dhaho Garasweyno maalintii la fuutaynay wiilasha Garasweyno 18 qof cali bunowna aan dhabarka ku wadanay annaka maalintaasaan ooynay oohinta maanta la arkayso hor baan u ooyno hoos baan la ooyay kor baan u ooynay Garissa account waxa iigu jira wiil la dhaho Salabaan Aadan Jiro muxuu fadhabeero maantana walaalkayga wuxuu joogaa Kismaayo wixii ka ridana waa cali bunow qorane cali bunow qorane shirka maanta oo iftiin oo suuqan yeere kama hadli lahayn ma aan ka xishooni lahaa inaan meeraha qaar ka hadlo kuma san jirin maadaama qaasinow uu maanta iftiinna baraarujiyay wiilkeenna ha u maraynina arrin yar inay taho arrintan waa arrin wiilashayna Soomaaliya ka daateen waligii Salabaan Aadan Jiro wuxuu ku dhashay meesha la dhaho Garasweyno maantana wuxuu joogaa Kismaayo ma 18 qof yo ana kamid aha nadiif kursigiisa qofkii laga qoray mishaar bil maxaan qaadanay sanad 12 bilood 14 ogaadeen absamo aha ninka dhisanaysi maanta madaxweynaha Kenya aan doorano waa Uhuru Wagaale ninka ogaadeenka in la dhaho lama dooranayo ma aha ninka la heshiino ayaa wax noo qaban kara 18 qof la suutay siyaan musajiro qaasin haddaan hayftiino haddaadna soo banaan bixise oo banaanka nagayse oo hooyaalka gurigooda ku murugsanaayeen aan nahay yaaxiya wuu nagu guuray hor buuna noogu guuray wuxuu dhahay iriday waynii furan gabdhaha qaasin oo iriday waynii furan dharaartu soo galana gabdhaha qaasin irid uu ka xirtay inta qabiil ee ogaadeenka kamid ee iridii way galayeen geedkii odayaasha qaasin bilcaantaan ka kacay 10 cunug waraaqyahoodan qaaday annakoo 10 ruuxaan israacnay iridtaan tagnay guriga xiishuuna fariisiiyey saa u fafadhino yaan iska soo diray intaan daa aadno kii kansalna waraaqtayna oogu ridayna kii baarlamaanna oogu ridayna kii dibadda gafana oogu ridayna meeshan waxba nagama jiro bilcaanta qaasinay bilcaan annakaa isdhex soconnaa tuu uurka wax ku wadato wiilkaa intuu jira barkan uma kacay wiilashaynoo dhanaa heeman kii hadda dhasha asagoo wuu kari wiilkan baa habar baa soo dhasha tii uurka wax ku haasatoy uurka fur gaaris aa ku harayseen waxba ma haso in waxaa jirta in ku hari jirta badana wuu haraa nin maanta yaxaya iridii joogsan male naagti yaxaya waxayna dhihi waxaa 50 waa la gadan reeqaasin waa la gadan baa noocad waxaan rabaa bilcaanti reeqaasin inay soo qabsato arrinta way soo dhammaatay ragga reeqaasinow odayaalow dhalinyaro dhalinyaro oday qaasin dhulkuu dhigay dhalinyaro maya kuwan iyo deh adablihii labada abaqoo doolar u fakta waay har dhalinyarooy ha raacina odayaashan hadalkeed yaa la raacin dhalinyaraan la hadlayaa kii meeshuu jooga oo hadalka wuu maqlayaa dhalinyaro iyo bilcaan hadday isku xirato oday hunguri doonta waxba ma gooynay qaasin cabdikariin
wiil u joogsaday weli ma aragteen dhibid gafara weli ma aragteen qaasi cabdikariin wiil oo dhibid gafara u joogsaday maan wiilkaasaa noo joogsaday wiil dalle weli allaan dhisne wiilkaayna maanta inaan dhisno rag iyo bilcaanbo aan guntiga iskaga dhigno maxaad ka qabtiin wiilkaas qaasi cabdikariin meeshan iyo burra ilaa garasweyne waan marine farax buu kaga imaade gaaris maanta intan haweenayda aan imaana waa gabdhahayna gaaris fadheen maanta waxaan idinku kulan sidai kuwaa u qaadeen ma u qaadeen meeshuu galo ma la gelaysin gacanta inaad taagtiin baan rabnaa waa mahadsan tihiin waa saan idinka rabna waa mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin wax badan kuma hadlayno qorax baa inagana fadhidiin wiilkaa inaan dhisno baan garab isku nahay intaan idinku yeerana waa intaas waa inaad ogaatiin ani warkaygu iska gaabay waxaan u malaynaa alfalaax iskuulka la dhaho waa la fadhiistay ilaa garasooynow baa laga soo qaaday dadka dhibid gafaraan soo qaadnay waxaan soo qaadnay ninka naasir macalin maxamed la dhaho kadib markuu shirkaa dhammaaday waxaan u baxnay ilaa garasweynow wacyigelin qaasin oo dhan baan soo wacyigelinay si qaasin si qaas buu u qaaday waa la ogaaday waan soo noqonnay intaan imaanay qaasinkii saaqa baan doonnay meesha hoteelka ee takhtarka leeyahaan fadhiisanay qaasin baan iskugu keennay qaasin inuu wada jiro waxaan u midaysan yahaan oodaaqa tusayn way qaabileen weliba waxayna yidheen ini qaasin buraawa annaga hor baan ka jirnaa arrinta hor baan annaka madax baan ka noqonaynaa ininka waxa halaynina annakay fartan ugu soo goday waxaa jirtaa 4 sano markii la joogo Kenya baan joognaa wax dimuqraati la dhaho doorashaa dhici way isbedeli annaka oodaq baan nahay oodaq baan ka mid nahay wax oodaq uu doonto umaan doonanaynaa nina ma dulminayn Ali Bunow markii la dhaho qaasin cabdikariin 2013 fooley reer qaasin doc kama mari oodaq yaxya wasiiri buu qaatay yaxya doortay cawlahan waxaa doortay haaruun waxaa doortay guuleed waxaa doortay maxaad cid kasta oodaq ogaadeen baa wuxuu ku shiray Nairobi waxay dhaheen 7 lafood ee oodaqe ninuu oodaq dhale oon fooley aan hataa awow u nakuura noo diida qaasinaa jira oodaq ninkaa kale inuu dhalaan ogna maxaa intii kale yaxyoon aan isla taagnin hataa gabarka weyna siiyeen niman yahow been yaan iila sheegin wax oodaq ka baxsan moodan anay dowladnimo aan doonayna tii u dambaysay waxaan ugu darnay inaan soo dhacnay gamar lama helin waan soo dhacnay ficil baan muujinay qarannimaan muujinayna ninkaa maan necebtaa gamar usoo dhacday maan nicin Ali Bunow anna kaligii maan haddii la soo reebay yaxyaa dhisayni adi ma ku habsaami adi qaasin cabdikariin ma ku habsaamaysid baan yaan iila sheegin waxbaa sidan waxba kama jiro ogaadeen baan anag la fadhiisanay markaan taa ka baxnay nin kaluulu la dhahaan la fadhiisanay waan isqaabilnay dhibid gafanaan noola qaabilay niman yahow ogaadeen baan ku xiranay ninkaasaan wadnaa gabadhi doc marta waa dhegcasi gabadheed lama goorsanayo sidaa ma isku ogaanaynaa middaa ma isku gamaha kor u taaga inaan u midaysano middaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta xafladan aad ka soo qayb gasheen maanta haweenka qaasi cabdikariin horta waad ku mahadsantihiin waxaan ognahay cawdaqna wuu ogyahay haweenka qaasi cabdikariin laf dhabarka cawdaq inay yihiin oo waxa cabdikariin isku xiriiriyo waxaan la ogyahay inay yihiin haweenka qaasi cabdikariin annaga qaasi cabdikariinna waxaan ognahay haweenka qaasi cabdikariin inay laf dhabarka annag ay yihiin oo haweenka qaasin unbaa wax dhisaanba sidooda banaanba haweenka qaasin baa wax dhisaan marka xafladan maanta aad ka soo qayb gashay horta waad ku mahadsantihiin 100% waad ku mahadsantihiin xafladan idinka iskale maanta annaka haddii aan nahay odayaashii qaasin haddii aan nahay process dheer baan soo wadna oo ilaahay waa ku roonaaye waqti dheer baan meelo badan baan kulan ka soo samaynay idinkana waad ka warqabteen oo dhigtaad ka warqabteen xafladan idinka iskale maanta welcome waa idinku soo dhawaynaynaa
waana isku kiin halaynaynaa dadka keli ee aan isku kiin halaynayna aad kamid tihiin ninkaan naasir macalin maxamed la yiro waa nin aad og tihiin oo maamulkiis horaan buu soo maamulay qaasim cabdikariim waad og tihiin nin kuruude maaha rag dulduleeluu yeesho walaalayaalow dulduleella marmarka qaarkood ciid baa ay qaban rag dulduleeluu yeesho hawaanow wiilkii inagu idiin soo ag fadhiisan gabadhinayna anaha duqbar wuu idhali karaa laakiin an naftay intan kalaanka weyn 71 baan jira wax yar baa ii hare markay saasta waxaan rabaa guntiga inaan isku adkayno intii noogala imaan oo dharaga caddaan nugula duubi mowqafka qaasin aan meelmarino mowqafka qaasin aan marino war wiilkaa ma nala qaadeen ma qaadeen annagu waxaa waaye walaal baa nacoodaa dad ma dhibayno waxba ma caynayno sidan wax buuya ma dhehayno danay raadsanaayeen dadka waxaan u sheegnaba danay raadsanaayeen annagana dantii ay raadsanaayeen waxay wadeen un baan annagana dan baan raadsanaynaa wax aan dhibayna ma leh midka kale safartan hadday naga dhammaato waa soo gelaynaa gambarka asag maxaa qaasin iyo cowlahan hadduu israaco wax kale oo dambeeyo male waa la soo geli gambarka bardhaweed annagoo soconno ya ha qaasinka iyo cowlaanka hadduu israaco gambarka salaadnima bariisa 6 saac baa lagu dhawaaqi niyadha iska dilina midka kale ani banaankaan tagay ilaa abti baan soo qaaday ilaa baadiyahan mare gabar qaasin ama wiil qaasin way ka go'an maanta ay way ka go'an inayna raacaan oo meel ay marin way ka go'an wax bay soo arkeen maxaa dhe dadkii baadiyaha jooga oo mashruuc rabi yara ama ceel inay kontrakta la siiyo ama meel wax yara la siiyaa waxba waaye beri kastaba af nooloma dhabaan dhabaay baa la yidhi dadka baadiyaha way naga go'an ayaga way ka go'an yihiin meesha aan u ciil qabnay maanta meeshanay ahayd gabdhahay ahayd gaaris weliba gabdhihii qaasinka kolleybo ma imaanin intan shanteeda yaa hadda dambaysa buulada aan ka soo kay hadda halka dad baa gaari sugaya hadal waxba ma badinaay waa nii aaminsanaha gabdhahaynaa tihiin meel ma maraysiino nii lama sheekeen karo raggana looma sheekeen karo waa 10 nin 10kaas ninna meel dheer baa looga soo noqoni darka waa laga bixin waa la tumi kuwaas lama bambilisaan maxaa dheh dadka ku xagalabi dawladnimada iyo hor socod ka rabin oo hor socod ka rabin wax la bambilisaan male soo miina garan diyaar soo batino raga inaan gees marino